السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جانال كمركز السود واضح مقال كان waxaan rabaa inaan idinku la wadaago hay'adda USCIS ta oo dadku marka ay green card ka qaadanayaan process gareysa iyo waliba passport-ka dadku marka ay qaadanayaan interview-ga ay ku maraan hadda waxaa loo ogolaaday in ciidamo hubeysan oo qofka xiri kara isla markaana u dhiibi kara hay'adaha kala duwan in ay sameystaan isla markaana ciidamadaasi ay hadda kadib halkaasi ay joogi doonaan arintaasi waa idin la wadaagaya caafimaadka shacabka Mareykanka qatar miyuu ku jiraa wasiirka caafimaadka Robert F Kennedy Congress-ka ayaa looga wacay qamiistii halkaasi su'aalo fara badan ayaa lagu weydiiyay kadib markii madaxii CDC-da haweeneyda uu magacaabay bil kadib markii uu dhaariyay xilkii uu ka qaaday kadib markii amarro qaldan oo uu siiyay ka soo horjeesatay wadanka waxaan ognahay in jadeeco ay ka dilaacday horaantii sanadkan haddana TB ayaa laga helay 3 kiis gobol kamida gobolada Mareykanka arintaasina waan idin la wadaagaya iyo gobolka Florida oo noqday gobolkii ugu horeeyay Mareykanka ee yiraahda iskuulada hadda kadib caruurtu qasab maahan inay talaal soo qaataan oo waalidiinta ay ku xiran tahay qatar intee laag ay arintaasi caruurta u keeni kartaa guud ahaan wadanka haddii gobollo kalena ay wadadaas uu xilka la wareegay masaafurin aad u balaaran iyo qabqabashada dadka sharci darrada arintaasi waxa uu helisay dadka wadanka intay mar hore soo galeen green card haystay amaba qofkaasi passport intuu gaaray green cardkiisii 10 sano uu ka dhacay amaba qofkii uu ka lumay adigu siyaabo kala duwan ba uga lumay ama dad intay wadanka sharci darro ku soo galeen gabar muwaadin guursaday amaba gabar intay wadanka sharci darro ku soo gashay nin muwaadin oo passport-ka haysta guursatay xitaa caruur ha isku dhalaan haddii ay rabaan in markii green card-ka la gaaro ay codsanayaan in xafiiskii lagu sugayo oo ay gacanta loo gelinayo hadda Ohio waxa ka dhacday wiil Soomaali ah oo muddo wadanka joogo sharci darro ku soo galay gabar ayuu qabay Soomaali ah oo citizen ah xilligii green card-ka markii uu tagay xafiiskiisii interview-ga uu lahaa ICE ayaaba loogu wacay suginta la yiri waa la xiray oo hadda waa u xiray marka hadda maamulka Trump ayaa qamiistii waxa uu ku dhawaaqay in hay'adda USCIS ta taasi oo go'aan ka gaarta dadka la siinayo green card-ka ama citizenship-ka dhalashada passport-ka in hadda loo ogolaaday in ciidamo hub qaadan kara isla markaana wax xiri kara in xarumahooda ay joogayaan waa la isku sugaya hadda xarumihii dawladda markii hore waxay ahaan jirtay meelaha ugu amaanka badan ee la tago in markaad xarun dawladeed u socoto laakiin hadda waaba laga cabsanayaaba in xarumihii dawladda la aado waxaana tilaabadan ay isbedel weyn ku tahay hay'adda US Citizenship Immigration Services-ka taasi oo ka madax banaanayd hay'adaha immigration-ka ee waxira isla markaana wax masaafuriya markii hore way ka madax banaanaayeen laakiin hadda USCIS waxaa loo ogolaanayaa in marka qofka interview-ga laga qaadayo application-kiisana la qiimeynayo in la fiirinayo in wadankan qaab sharci ah uu ku joogo iyo in kale inuu green card-ka uu si sharci ah ku helay iyo in kale iyo waliba inuu muwaadin noqon karo oo loo ogolaan karo iyadoo waliba la fiirinayo dhinaca humanitarian-kana la fiirinayo marka application-ka qofka uu dirsado waxa uu tagayaa USCIS ta marka haddii inta qofkan ay ka sheekeeyaan interview ayaa lagu wacaya waxa lagu leeyahay maalin hebel bal xafiiska imaaw xafiiskiina ISAB kugu sii sugaysaba haddana waxaa loo ogolaaday in ciidamo gooni ah ay sameystaan USCIS waxay sheegeen qoraal ay soo saareen qamiistii in arintan ay tahay mid hadda dib u eegis lagu sameynayo in loo ogolaado special agents in ciidamo gaar ah loo ogolaado kuwaasi oo loo ogolaanayo ama awood loo siinayo inay baaritaan sameyn karaan dad xiri karaan isla markaana sidoo kalena ay dacwad ku soo oogi karaan dadka ku xadgudba sharciyada immigration-ka ee wadanka Mareykanka sharcigan maamulka Trump uu soo jeediyay waxa hadda dib u eegis lagu sameynayaa muddo 30 maalmooda markaas kadibna waa la daabacaya marka la daabacana si rasmi ah ayuu u dhaqan galaya sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha wasiirkeeda Kristen Noem waxa ay sheegtay in awood loo siinayo hay'addan USCIS ta inay xaq u leedahay inay shaqaaleysiiso ciidamo dad soo xiri kara hub qaadan kara warrant sidoo kalena in baaritaan soo sameyn karo warrant intay jirtaan qofka xitaa gurigiisa ugu tagi kara oo baaritaan ku soo sameyn kara marka arintaasi waxa ay leeyihiin waxa la siinayaa awoodaha ciidamada kale ee dawladda ay leeyihiin meeshaas marka howl weyn ayaa ka soo socota hadda xarumihii immigration-ka
hadiiba oo USCIS meeshii dhan oo qofku green cardka uu ka qaadanayay markuu citizen noqonayana uu tagayay arrintaasi waxay tahay arrin aad u culus dad fara badan oo Soomaaliya waxaa jiro green cardka 10 sano marka la siiyo inta uu ka dhacay aan baasaboorkii xareysanin marka haddii sharcigii green cardka aad haysatay uu ka dhacay oo baasaboor aadan dalbanin intii 5 sano loo ogol yahay qofkii inuu ku dalbado haddii uu ka dhaca sharci la'aan ayaa tahay wadankan waa laga masaafurin karaa dad fara badan oo Soomaaliya sidaas sameeya sidoo kale dadka hadda wadanka sharci darada ku soo galay oo lamaane guursaday ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaadee ayagana saameyn ayay arrintaasi ku yeelanaysaa oo marka green cardka interviewgiisa la gaaro waxay noqonaysaa in goobtii inta lagu sugo halkaasi laga qabto arrintaasi waa ay dhacday qof waxaan arkay hadda 38 sano wadanka joogay aan horey bay idinku sheegay green cardka intuu ka dhacay markuu ballan qabsaday meeshii tagay la masaafuriyay qof 14 sano joogay waan arkay dad fara badan ee arrintaasi ku dhacday maamulka Trumpna hadda waa uu wadaa waa saasoo hadda waliba ciidamo loogu sii ogolaanayo USCIS inay joogaan waliba hubeysan oo qofka xiri kara ICE-na u dhiibi kara isla markaana baaritaan ku sameyn kara arrimahaasi wixii ka soo kordho wayna arki doonaa haddii aan leedmo dhinaca kale aan u gudbo caafimaadka wadanka Mareykanka qatar miyuu ku jiraa Trump waxaan ognahay wasiirka caafimaadka waxa uu magacaabay nin la yiraahdo Robert F Kennedy oo markii hore si madax banaan madaxtinimada ugu tartamay laakiin Trump taageere Trumpna uu ballan qaaday inuu xil siin doono ninkaasi waa nin anti-vaccine ah talaalada shacabka Mareykanku ay qaataan aad ayuu uga soo horjeeday wasiirka caafimaadka ayaa laga dhigay marka ninkaasi marka maxaa laga sugayaa in qatar uu ku yahay ayaa hadda waxay leeyihiin mas'uuliyiintii hore u soo maray in caafimaadka Mareykanku uu qatar ku yahay toddobaadkii hore waxa uu xilka ka qaaday haweeneydii madaxda ka ahayd hay'adda CDC hay'adan oo fadhigeedu yahay Atlanta Georgia waxa ay u xil saaran tahay ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee shacabka Mareykanka qatar ku ah marka Susan Manaris ayaa la yiraahdaa bil ka hor ayuu xilkaasi u dhaariyay laakiin haddana isaga ayaa xilka ka qaaday sababta uu xilka uga qaadayna waxa ay tahay waxa uu kala diray guddigii loo xil saaray arrimaha talaalada marka talaal la sameeyo CDC-du waxay lahayd guddi la yiraahdo vaccine recommendation oo ku taliya talaalkan shacabka Mareykanka waa la siin karaa ama lama siin karo bishii June ayuu guddigii kala diray hadda marka waxa uu doonayaa dad sidiisoo kala ah talaalka ka soo horjeeda in uu ku soo daro guddigaasi marka haweeneyda madaxda ka CDC-du arrintaasi way ka soo horjeesatay isla markiiba wuu fayr garay walow iyaduna ay tiri asagu ima magacaabin madaxweynaha ayaa magacaabay oo xilka iga qaadi karo markii iyadu is casishay 4 xubnood oo kale ayaa iyaguna is casilay oo hay'adda CDC-da ka tirsanaa arrintaasi marka waxay sababtay in 9 xubnood oo horey madax uga soo noqday hay'adda CDC-da oo madaxweynayaal kala duwan ee Mareykanka la soo shaqeeyay intay wargeyska New York Times qoraal maqaal dheer ku soo qoraan ay yiraahdaan wasiirka caafimaadku waxa uu qatar gelinaya caafimaadka wadanka Mareykanka ayuu qatar gelinaya sidoo kalena ku dhawaad 1000 shaqaale hadda ka shaqeeya CDC-da iyo kuwa horey uga shaqeyn jiray iyaguna waraaq ay u direen wasiirka caafimaadka oo leeyihiin waa inaad is cashisaa arrintaasina wali isagu ma uusan ogolaanin Congress-ka ayaa Khamiistii looga wacay su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ahaa arrimaha talaalka oo kale ninkan wuxuu yiri anigu ma diidayo dadka inay talaal qaataan maamulka Trump xitaa waxa uu soo jeediyay talaalkii cudurka coronavirus-ka in hadda dhakhtar inuu ku soo qoray ay tahay in lagu siiyo waxa loo ogol yahay dadka da'doodu 65 ka weyn tahay iyo dadka xaalada caafimaad qaba oo kaliya laakiin haddii adigu hadda aad farmashiyaasha tagto waxa lagu leeyahay haye ma wadataa waraaq dhakhtarkaada ka socota in talaalkaasi lagu siin karo marka Trumpna waa ninkii dadajiyay xilliga madaxweynaha talaalkan coronavirus in la soo saaro hadda iyagii ayaana dadkii u diiday marka arrintan caafimaadka wadanka Mareykanka qadadka shacabka Mareykanka qatar miyuu keeni kartaa Congress-ku markii uu wasiirka caafimaadka hortagay xitaa su'aalihii la weydiiyay waxa kamid ah coronavirus-ka imisa qof ayuu Mareykanka ku dilay arrintaasi waa uu ka jawaabi waayay waxa la yiri adiga ku dhawaad 8 bilood wasiirka caafimaadka wali ma ogid inta coronavirus oo qof oo Mareykanka uu ku dilay arrintaasi waa uu ka jawaabi waayay waxaan ognahay wadanka jadeeco ayaa ka dilaacday bilihii February iyo May bishii 2 ilaa iyo bishii 5 kiisaska laga helay waxay noqdeen kiisaskii ugu badnaa ee ku dhawaad muddo sanado ah laga helo Mareykanka 1431 kiis ayaa sanadkan 2025 oo jadeecaha Mareykanka laga helay 3 qof ayaa u dhintay gobolka ugu badan ee kiisaska ugu badan laga helay waxa uu ahaa gobolka Texas 802 kiis ayaa laga helay waxa jirtay sanadkii 2024 kiisaska jadeecada Mareykanka laga helay 285 ayay ahaayeen 2020 242 ayay ahaayeen 2019 ayay 700 oo kiis ay dhamaayeen marka hadda waxa la leeyahay marka cudurka TB-ga ayaa haddana laga cabsi qabaa Mareykanka inuu ka dilaaco waxa iyagu ku tilmaamayaan cudurka ugu qatarsan adduunka
TB-da aad ayay u necab yihiin dadkan ajaanibta ah. Marka waxaa la leeyahay 3 kees ayaa laga helay gobolka Maine, gaar ahaan Portland meel u dhow. 3daasi qofna wax xiriira ma lahan. TB-da waxaan ognahay dadku waa ay kala qaadaan. Marka hadda baaritaan ayaa lagu sameynayaa dadkaasi imise qof ayay la kulmeen. Contact tracing waxa la yiraahdo sida coronaviruska markii uu diray in dabagal lagu sameeyo. Dadkaasi marka waa in la karantiilaa. Haddii kale dadka kale la jooga TB-da khatar ayay u keeni karaan oo way ku ridi karaan. Marka waxaa hadda lagu howlan yahay sidii 3daasi qof loo ogaan lahaa. Welibana dad wadanka ka safray ma ahan, dad wadanka gudihiisa joogay waay. TB-da sanadihii qarniyadii 18aad iyo 19aad Mareykanka qofkii ay ku dhacdo waa iyadoo qof xukun dila lagu fuliyo kala ayuu ahaa oo hore ayay ka dilaysay. Xilligaasi daawo ma lahayn, laakiin hadda waa laga hortagi karaa. Antibiotics ayaana lagu daaweyn karaa. waxaa jirtay in 16,000 oo qof Mareykanka ay sanad kasta ku dilaysay ilaa iyo sanadkii 1950, laakiin hadda weli waxaa la leeyahay sanad kasta 550 qof ayaa TB-du ay Mareykanka ay ku dishaa. waxaana inta badan hadda kiisaska TB-du ay ka imaadaan dadka Mareykanka la keenayo oo qaxooti ahaan qofku waxaan ognahay amaba haddii visa lagu keenayo ama qaxooti TB haddii laga helo qofkaasi ilaa laga daweeyo Mareykanka looma ogolaado, sida ay u necab yihiin cudurkan TB-ga. Marka inta badan dadkaasi imaanaya wadanka dibadiisa ka imaanaya ayaa TB-da u keena. Sanadkii 2024 10,347 kiis ayaa la helay. Sanadkii 2011 ayaa ugu dhoweyd intaasoo kiis la helo oo 10,471. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in sanad kasta 1,025,000 oo qof ay sanad kasta caalamka ay TB-da ay ku disho. Dhinaca kale, hadda gobolka Florida ayaa wuxuu noqday gobolkii ugu horreeyay gobolada Mareykanka ee 50 ah ee yiraahda caruurta iskuulada. Markii hore qasab ayay ahayd in caruurta talaal la soo siiyo oo iskuulka waraaq ayuu ku soo diraya, wuxuu leeyahay caruurtaada talaalkaas ayuu u baahan yihiin, waa inaad soo siisaa. gobolkii ugu horreeyay ayuu noqday hadda oo yiraahda qasab ma ahan talaalka in caruurta la siiyo oo waalidiintu iyaga xaq u leh, waa ay diidi karaan waana ay ogolaan karaan. kama soo qaad hadda ilmo jadeeco ku dhacday ayaa galaaska waxay la soo fariisteen ilmahaadii, isla markiiba caruurtaasi jadeecadii waa ay wada qaadayaan. marka hadda gobollo kale ma laga yaabaa oo Republicana inay ku daydaan oo yiraahdaan annaguna waan joojinay inaan qasab ka dhigno caruurta iskuulada in talaalka la siiyo. dad fara badan waxa ay aaminsan yihiin talaalkan cudurro ayaa laga qaada, laakiin waxaa jirta sidoo kale in wax badan uu talaalkan ka hortago, sida hadda TB-da, sida hadda jadeecada, waxyaabo fara badan oo caruurtu haddii ay hal meel isugu yimaadaan ay ku kala qaadi karaan. marka waan arki doonaa gobollo kale oo Mareykanka haddii ay ku daydaan gobolka Florida oo toddobaadkii hadda lasoo dhaafay joojiyey oo yiri qasab ma ahan caruurta iskuulada in talaal kasta la siiyo. wixii ka soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta, inta idinla sida iyo nabadgelyo.